السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتين شرفت لي ku xiran kanaalkeena baraf English kusoo dhawaada cashirkeenii saddexaad waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah Zakari Maxamed cashirkeenii saddexaad weli wuxuu dhexda kaga jira ama bilowgiisii hore aan kaga jirnaa boqolka oraahyo oo si joogto ah u isticmaalno ama 100 basic English phrases qaybteena maanta aan baranayno waxaan ku baranaynaa qaabkan weydiin lahayn jihada ama tilmaan qof markaan weydiinayno meel aan u soconno qaabkan loogu tilmaami lahaa qaabkan weydiin lahayn insha Allah inteenan ku bilaabin fadlan haddaad naga cusub tahay waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe share like nagu caawisaan si ay noogu noqoto dhiirigelin adinkana uga faa'iidaan cashirada aan soo gelino iyo muuqaaladeena cusub mahadsanid sidoo kalena ha ilaawin inaad furatid kambareelka si ay kusoo gaaraan muuqaal walba aan soo gelin oo aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada qaybteena maanta ama qaybteena ugu horeysa aan baranayna waxay tahay intaadan qof su'aal weydiinin marka hore waxaa u baahan tahay inaad soo jeedisid qofkaas inaad dareenkiisa soo jeedisid sa u weydiisid su'aasha u baahan tahay in lagaaga jawaabo ama tilmaanta u baahan tahay in lagu siiyo ama jihada u socotid in lagu tilmaamo waxa laga maarmaan ah inaad heshid qofka weydiinaysid inaad heshid dareenkiisa ama qofkaas aad soo jeedisid marka qaybteen ugu hore waxaan ku bilaabaynaa qaabka u soo jeedin lahayd qofka siiba qaab ixtiraam ah oo aad u qurux badan qofkaas aad u soo jeedisid oo asna qofkaas kugu siiyo jihada aad rabtid si macquul ah una quruxda badan ku caawin doontaa haddaan ku bilaabo qaybtaas oo qofka ku soo jeedin lahayd way badan yihiin waa qaybo aad u badan marka waxaan isleeyahay saddexdan halka aan ku heysano inay yihiin kuwa ugu muhiimsan oo qofka ku soo jeedin kartid ama aan dhahay ku soo jeedin kartid dareenkiisa oo xaggaaga u soo aadin kartid qofkaas dareenkiisa waxaa ka mid ah midda koowaad haddaan ku bilaabo hello can you please help me hello can you please help me hello waa salaantii oo hi oo kale can you please help me fadlan ma i caawin kartaa waa qaybta koowaad ama midda koowaad oo aad qofka soo jeedin kartid dareenkiisa midda labaad ayadana waxaan leedahay sidaan excuse me iga raali noqo qofka kow waa raali gelisay laga yaabo inaad mashquulisay ama mashquul yar ku jiray qofkaas kasta yar aad ka mashquulisay howlihiisa waxaa u baahan tahay kow intaadan su-aashaada weydiinin qofkaas inaad raali gelisid waa isla fahnaa malena excuse me could you help me iga raali noqo ma i caawin kartaa number 3 hi may I ask you for some help and may waxay la mid tahay sidii can oo kale laakiin may waa sidii qaab si qurux badan oo ixtiraam badan si xambaarsan hi may I ask you for some help hi waa salaan somaan qofka may I ask you ma ku weydiin karaa for some help xoogaa caawinaad ah qofkina waa salaantay kadib waa ka codsatay inaad weydiin kartid caawinaad iyo in kale marka qaybtan af Soomaaliga ahaan waxay noogu qoran waa qayb inoo sharxaysa goortaan isticmaali lahayn inta aadan qof su'aal weydiinin waxaad u baahan tahay inaad hesho dareenka qofka si aad u codsato caawimaad si aad u gaarto meesha u socotid qofka marka intaadan jihadaas aad weydiinin waxaa u baahan tahay qofkaas inaad dareenkiisa soo jeedisid waa isla fahnaa umaleynaa okay qaybtan ayadana waxaan ku baranaynaa qaabkan ku weydiin lahayn jihada aan ku baranaynaa qaybtan ayadana marka qaabaan ku weydiinayna way badan yihiin marka insha Allah xoogaa halkan inoogu soo qoray oo muxuu ahaa wax badan aan ka faa'iidi doono oo qaabo badan aan weydiin karno jihada aan u soconno okay marka qaybtan oo halkan number 2 inooga bilaabanaysa waa qaybtii koowaad ama labaad aan dhahay qaybtii koowaad waxay ahayd qofka inaad dareenkiisa soo jeedisid saas su'aal weydiisid qaybtii labaad marka waa tan waxayna leedahay could you tell me how to get to the bank
bangiga laga yaabaa inaad u socotid laakiin ma taqaanid dhanku kaa jiro qof aad weydiinaysaa laga yaabo meeshaas inay ku cusub tahay. Could you tell me how to get to the bank? ma ii sheegi kartaa sida aan ku gaari karo bangiga? ma ii sheegi kartaa sida aan ku gaari karo bangiga? Could you tell me how to get to the bank? ma ii sheegi kartaa sida aan ku gaari karo bangiga? xitaa halkan waa laga yaabaa bangiga magaciisa inaad soo gelisid. tusaale, could you tell me how to get to the Salama Bank haddaad Soomaali joogtid, ama Premier Bank, sidaas oo kale bangiyada magacyada waa soo gelin kartaa. laakiin muhiimadeena hadda ma aha bangiyada ma soo wada tirin karno, qofka bangiga u socda ma naqaano, marka laga yaabo qofkaas inuu ku weydiiyo marka intaan ku dhahdid which bank, bangiga markasta magacaaga u sheegaysaa, magacaaga dhinaya magaca bangiga u socotid. okay, mid saddexaad ama mid labaad, mid saddexaad sorry, is this the right way to the city center? Is this the right way to the city center? Is this the right way to the city center? ma ku soconaa wadada saxda ah ee aada bartamaha magaalada? bartamaha magaalada waxaa loo yaqaanaa city center, waa bartamaha magaalada ama faras magaalaha ee magaalada, waa city center. wada ku socotaa ma hubtid wadadaas inay saxan tahay in kale, qof aa weydiisay waxaa leedahay wadadan midii saxda ahayd miyaa u aadayso city centerka ama faras magaalaha. Is this the right way to the city center? ma ku soconaa wadada saxda ah ee aada bartamaha magaalada? ma ku soconaa wadada saxda ah ee aada bartamaha magaalada? Number 4, we can't find the train station. Is it near here? We can't find the train station. Is it near here? waan la'nahay boosteejada treenka, halkan ma ka dhow yahay? waan la'nahay boosteejada treenka, halkani ma ka dhow yahay? We can't find, waan la'nahay. We can't find ama waa heli la'nahay the train station, boosteejada treenka. Is it near here? halkani ma ka dhow yahay? su-aashaana waxaa isticmaali kartaa marka u socotid ama meel kala rabtid inaad aadid ama boosteejada treenka raadinaysid, laakiin aad la'dahay meeshaasna ku cusub tahay, kolley meel ku cusub tahay haddaad joogtid oo boosteejada treenka la'dahay, qof uun meesha degan ama dukaamada dadka taagan ama dadka wadada maraa laga yaabo inaad weydiisid, aad dhahdid halkan ma ka dhow yahay boosteejada treenka ee waan la'ahay, qof kasta marka ku hagi doonaa. marka cashirkeena qaybtan maanta aan baranayno kaliya waxay ku saabsan tahay jiha weydiin ay ku saabsan tahay. insha Allah cashirkeena xiga wuxuu noqonayaa qaabka jihada loogu tilmaamayo tilmaan qaadasho ama tilmaan bixin. We can't find the train station. Is it near here? waan la'nahay boosteejada treenka, halkani ma ka dhow yahay? Okay, 5. Is this the right way to the mall? Is this the right way to the mall? kani ma yahay jidka saxda ah ee suuqa? kani ma yahay jidka saxda ah ee suuqa? wada maraysaa ma hubtid wadadaas, qof aa weydiinaysaa wadada ma saxanahay, wadadan ma saxanahay oo suuq i geynayso, wadadii saxneed ma ku socdaa? Is this the right way to the mall? Is this the right way to the mall? kani ma yahay jidka saxda ah ee suuqa? 6. Number 6, what is the best way to get to the airport? What is the best way to get to the airport? What is the best way to get to the airport? waa maxay habka ugu fiican ee lagu gaaro gegida diyuuradaha? waxaa u baahan tahay airportka u baahan tahay inaad aadid, laakiin waxaa garan leedahay qaabka ku gaari lahayd. ma taxi gooni ah qaadataa? ma basasaa jiro oo caadi u tagayo? ma qaabkee ku gaari kartaa? ama stareema jiraan oo boosteejada ku geyn karo airportka ku geyn karo? marka waxaa u baahan tahay inaad ogaatid wadada ugu habboon adigoo markaasi ka taxadaraysid in duulimaadkaaga ama safarkaaga aad ka habsaantid. What is the best way? marka qof waxaa weydiinaysaa what is the best way to get to the airport? waa maxay habka ugu fiican ee lagu gaaro gegida diyuuradaha? waa fahanteen amalena waa isla soconaa. cashirkeena maanta markale waxaa ku celinaya wuxuu ahaanayaa
qaabka tilmaamo u weydiin lahayd meesha u socotid qofkii qaabka u weydiin lahayd mar kalena waan ku celinaya insha allah cashirkan haddaa si fiican u dhageysatid fahantid cashirkii xiga wuxuu noqon doonaa qaabka tilmaanta loo qaato oo ama tilmaan lagu siiyo dhankaas ka baxay dhankaas u leexi hore u leexo aan ku baranayna insha allah muuqaalkan ama cashiradan aan soo wadno waa muhiim in si fiican u fahantid oo diiradda u saartid oo ay noqdaan ereyo ama jumlado halkan aan kugu soo gudbinayo kuwa isticmaalaysid maalin walba ama ay qayb ka yihiin noloshaada maalinlaha ah. Number 7. Do you know where the museum is? Do you know where the museum is? Do you know where the museum is? Ma taqaana halka uu ku yaalo madxafka. Museum waa madxaf. Museum waa madxaf. Marka madxafka u baahan tahay inaad gaartid laakiin ma taqaanid dhanka uu ka jiro. Laga yaabo inaad taxi saaran tahay ama laga yaabo inaad lugeynaysid qofaa weydiinaysaa ama dadka wadada marayana weydiinaysaa ama qofkii kula socda meeshii heli kartid markaas aad weydiin kartid aad su'aashan weydiinaysaa in tilmaan lagu siiyo aad ku gaartid madxafka. Do you know where the museum is? Do you know where the museum is? Ma taqaana halka uu ku yaalo madxafka. Ma taqaana halka uu ku yaalo madxafka. And number 8. Where can we find a restaurant here? Where can we find a restaurant here? Su'aashan waxaa weydiinaysaa marka qof uga baahan tahay inuu ku sheego agagaarkaas inuu ka dhow yahay wax maqaayad ah. Agagaarkaas inuu ka dhow yahay wax maqaayad ah marka maqaayada u baahan tahay in lagu sheego directionka ama dhanka ay ka xigto. Qofaa weydiinaysaa where can we find a restaurant here? Halkeen ka heli karnaa maqaayad u dhow halkan. Halkan maqaayad ka dhow ma jirta ama halkeen ka heli karnaa maqaayad u dhow halkan aan joogno hadda. Where can we find a restaurant here? Halkeen ka heli karnaa maqaayad u dhow halkan. Waa fahanteen malina waa tilmaamo muhiim ah oo hadda u baahan tahay qof qaabka u weydiin lahayd oo hadda maadaama bilow ay yihiin waxyaalo fara badan ereyo badan inoo dhiman yihiin ilaa 100 arajinayno iyo haddaan ka badin karnaba. Marka jumlooyinkan waa jumlooyin muhiim ah oo aad iyo aad inoo caawinayo haddii aan u baahano ama qayb aan kaga dhigi karno nolol maalmeedkeeni. Marka insha Allah qaabka idinku soo gudbinayo waxay tahay xaalad walba muuqaal gooni noqonaysa. Xaalad walba muuqaal gooni si aad u fahantid waxa u baahan tahay muuqaal walba inaad la socotid. Okay, number 9. Pardon me, I'm lost. How do I get to the post office? Pardon me, I am lost. How do I get to the post office? Pardon me, excuse me waa isku mid. Pardon me, excuse me waa isku mid. Iga raali noqo ila mid tahay. I am lost waa lunsanahay. Iga raali noqo waa lunsanahay. How do I get to the post office? Sideen ku gaari karaa xafiiska boostada. Boostada waa meelaha alaabta lagu kala diro iyo waraaqadaha iyo waxaas kulli waa la yaqaanaa. Pardon me, I am lost. Iga raali noqo waa lunsanahay. How do I get to the post office? Sideen ku gaari karaa xafiiska boostada. Iga raali noqo waa lunsanahay. Sideen ku gaari karaa ama sideen ku heli karaa xafiiska boostada. 10. Could you direct me to the nearest bank? Could you direct me to the nearest bank? Could you direct me to the nearest bank? Marka ergan direct waa tilmaamid. Ma ii tilmaami kartaa bangiga ugu dhow? Ma ii tilmaami kartaa bangiga ugu dhow? Could you direct me to the nearest bank? Ma ii tilmaami kartaa bangiga ugu dhow? Cashirkeeni maanta waa inoo halkaas ku dhamaaday. Inteenaan ku kulmeyno cashirka xiga waxaan idinkaga tagay khayr iyo baraaro iyo barwaaqo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.